بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مهض نمعين بدن بولاهي نسين إنه مهض غنها عافماد له نباد له هؤلاء الرسل والقرية أي نوقف صلى له تذكر إنه إلهي التشويش كي شكل كسر السود يعني معلم بعد قدم بس وما تمد السن ومر يتشدر كود السنة إلهي نقص منه الحمد لله مات يريد أن أريه إلا وزيرين أضي وحوي دورشة مقلي لبعض دورشة سوريين ولا هيدين يحيد عي وحن كبر إنه واحد الله أقبل ست طورة يدور واحد هذان مركا حسابته وسان تحاسب كل عدواني وحنا يدعون كل إخواني مركا واحد مدة مركا دورشة الدنيا سرير ولا حساب الله ما حسابته وكراه أنا كافي أنا كافي وأسر أو حوا هو عادي وحين صار مريض أنت دورشة مسار ما تعرف هالك وحرسك أنا مركا أنت أنا يجي هرجسنا أنا يجي أنت قلنا أنا يجي وحن قوامي إن أوحره أو ما أنت ترتكع أنا قرين عبد الرحمن صوابها ما يابو الشيء وحن آذي أبوك مغضقية إن أنا إصابة أول ورين أو حمد ربي يقول واسي وانقاتي قروحة إسراع يدنك الله الله مضبيان marka hore magaalada Hargeysa is khilaafsan doorasho deegaanka galbiso aan jooga ma dhici karta iyada is khilaafsanaysa riyada inay gasho doorasho labadii labadaba marka soo laba laba aan ribaax karayo joog iyo dib loo qoran karayana si walba inuu ku sii daayo ku durdursaan magaalada ana tiidi aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan maanta wad guuleysatay أولي قاتل حزب النقط ما أنت أضع حركة مجال قوانين حزبي إنما كان مديدا ومدن الساسر على الكت مثل الأيام إغري ورسادة وحقوري كان حياتك كرة عدسي تحلت شابين حب بنقاد كثير من بنقاد هل أنا بتوصل أنت يا حقود أنا ولا ورش غيره عبد الرحمن أنت الكوات من القرين وحنا قلنا كفرين وحنا لا سياسة على سنبا ما فرق عرنت لك ما كعايو سن يدا أول شيء أنا سام لما تقول على تبتو أنا سوى رسول شو قصة إيه أنت كلام حقي كلام تاني قارسية أنا ما هتنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وحنا جمهورية الصومال ودنا موسى بيحي عبدي ما يقع عصوبة نقونا خميسة إن شاء الله تعالى عبد الكريم أحمد موبي يبقى صحافتنا بتشوفتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف الموت أنا نقول أن كانوا سجوني مامو كنتي ما أنت نوعا شيء وأن كان علي عبد الكريم على ما جد حيسميتهم صدق سنان صاحبنا ولا كل سؤال بقولي كل سؤال شكل لي سؤال شكي وحنا هذون كل سؤال أنا كعبة في عني أنا كعبة في عن أنا وحن لها وحن دم استوى قبيلين كي علي عبد الكريم ما لها وحن سمينا مجال عبارة وترتن كانت كل حيود هوني لا بقول لي سلاش كلها كأودية كيسة وحسود هوني تطبيت هون حلبان تطبيت هون حلبان ما يبغى يسكت هوني مايك ومن هذا علمية ملاحظين عن تصنبه كلام قاعدة ما كده ما كقاعتي وآنكي ويقول ما أنت هذا وتشوف يودعوا فقداً leeyahay runtii siyaasiguna ma aha kaarooda waa ka wax ka soo dhacayda xalkeeda ma dhameeya anigu madaxweynaha iyo dalkayga iyo magaaladayda qadaynaya inaan Cabdikariim la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamida xubnihi la soo doortay labadii waa baad kuma anaqaya madaxweynaha baad ma santay salaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu yaraysaa madaxweynaheena waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqo soo diray madaxweynuhu arrintan soo dhex galo sidii wanaagsaneyd ee madaxweynuhu uu xil isaga saaray inuu arrintan galo Hargeysa oo mideeyo ay midnimada Hargeysa doorashada galay
waxay ka bilaamaysay in xildhibaanada 17 la doortay madaxweynahoodii iyo odaygoodii inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo de haddii la idhaa xildhibaankii ugu codka badnaaba noqonaya maayer sharciga ma waafaqsana sharciga waxay ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabeetana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jecel inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqan anagu aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay in bal dadkaa faraha badan ee maanta markii ugu horreysay si ku xora qabyaalad u codeeyey ka codeeyey xaafado iyo degmooyin kala duwan qofkii ay u codeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xil iska saaro runtiina madaxweynuhu dhowrkaa cishii tegey si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qaranka ah ayuu arrintaa u galay una dhamaystiray walaalkii cabdiraxmaan maayarkaygii hore weli waa maayer isagaa weli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo isagoo xaq u leh marka horena sheegay waxaan lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uu iga codsado waxaan madaxweynaha uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan siduu u maamulay wuxuu u maamulay si lexjeclo leh hargeysa jacayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu indho xisbi ku eegi lahaa xaajadu halkan ay soo gaadhay may soo gaadhin madaxweyne waan kaaga mahadnaqaya aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya cabdiraxmaan maayer aad iyo aad bay mahadsan tahay waxaad qaadatay go-aan geesinimo leh waxaad ixtiraamtay madaxweynahaagii waxaa nagana noo farxada waa aragnimadaadii inaad golaha kula jirto oo nala joogto waxaad insha allah noo noqon doontaa odaygii golaha deegaanka iminka degi kumaha waxaad noqon doontaa odaygii hargeysa waxaad noqon doontaa maayarkaygii hore saddexdaa taytalna saddexdaba ixtiraamkooda waad naga helaysaa insha allahu tacaala shaqo wanaagsan baynu wada qaban waxaanu ka faa'iidaysan waa aragnimadaada aad iyo aadna waan kuugu mahadnaqaya